Waxaa maanta magaalada Gaalkacyo lagu xarig jaray dhismaha xarunta xanaanada carruurta ee Ayatiin. Xarig jarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay duqa degmada Gaalkacyo Xasan Maxamed Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Dujaana, madaxa hay'adda UNICEF iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn, Caaisha Geystir oo ah maamulka iyo aasaasaha iskuulka Ayatiin ayaa goobta ka hadashay. maalmo qurux badan oo maanta lagu daray runtii waa maalmo cajiib ah way noo noqonayaan maalmo cajiibana waa rajeynaynaa maanta oo ah 28 bishii 7 2023 waxaana la jooga wasaaradda waxbarashada oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka ahna wasiir ku-simaha Cabdiraxmaan Dujaana oo runtii wasaaradda waxbarashada tacliinta sare dhismahan ayadu ay ubadka dhalaanka Ayatiin u dhistay iyo hay'adda UNICEF ayaduna dhismaha hirgelisay oo joogo sargaalka ugu sareeya hay'adda UNICEF ee sargaal Siciid waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaynaa dugsigan taariikhdii oo soo maray oo dheereyd runtii isku tashi bulsho dugsi ku soo bilowday buu ahaa sida u jeedaan dhagax dhigii dad badan oo mas'uuliyiin ah oo runtii halkan fadhiyo oo Professor Cabdullaahi ka mid yahay Nuur Salaad hooyooyin ka mid yihiin dhaqankii nabadoonnadu ka mid yihiin baa runtii aad iyo aad uga qayb qaatay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ayagana qayb goobta nala jooga agaasimaha Cabdullaahi Axmed oo runtii agaasimo laf dhabar oo ah xarumahan Puntland xanaanada inay ka qayb galaan oo ka hirgalaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa asna meesha fadhiya wasiirkii intii processkan soo socday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda wasiir ku-xigeen Bashiir Jaamac oo asna nasiib u yeeshay maalintii dhagax dhigana iyo processkii soo socday inuu qayb ka ahaado maantayna nala jooga waxaan u mahadcelinaynaa nabadoonnada anoonan kala qaadayn dhammaantood hooyooyinka ganacsatada bahda waxbarashada oo laf dhabar noogu ahayd inuu mashruucan guuleysto Ayatiin asaaskeeda wax yar markaan dib ugu laabto 2014 anoo jaamacad dhiganayaan qorshaha soo bilaabay dad badan oo waxgarad ah oo bulshada gobolka ahna waa kala tashaday runtii 2016 waxaan ku guuleysanay in dugsigu hirgalo ayadoo roog yar la dhigayo carruurtii wax lagu barayo bulshadeena waxay u istaagtay inay dugsiga u qareemaan waxaana la ogaaday muhiimadda xanaanadu ay u leedahay waxbarashada iyo ubadka soo koraya xanaanadu waa bridge-ka isku xiraya ilmaha guriga iyo dugsiga isku xiraya waxaa imaanaya ilmo 5 jir ah oo wax kasta asagoo soo bartay dugsiga imaanaya hadhowtiin waxbarashada kale ku guuleysanaya waa meesha ugu caqabada badan oo bulshada laga dhiso hadii lagu guuleystana bulshada ay guuleysanayso waxa Ilaahay fadligiisa ahaatay dufcado badan inay Ayatiin ka baxeen oo maasha Allah runtii ka qalin jabiyay xanaanada dugsiyada asaasiga ku biiray maanta waxa guul ah xarig jarkan wasaaradda iyo UNICEF iyo bulshada isku tashiga Ayatiin uga shaqeysan la xarig jarayo in dugsiga qaybtii barbaarinta carruurta horeyna u sii waday waxbarashada asaasiga ahaydna ku daraysa u jeedaan ilaa fasalka 6aad baan hadda qabanaynaa awalna maaragtay ardadeena baa horey u sii socoto waday UNICEF oo u mahadcelinaynaa waxbarashada ilmo kasta inuu mustaqbal iyo iftiin yeesho si ugu dadaalayso waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasaaradda mar kale runtii mahadcelin baan anagu waxa weeye maanta idin haynaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo ganacsatada oo goobta ka hadashay ayaa bogaadisay sheegayna in loo baahnaa dugsiga xanaanada carruurta ee Ayatiin runtii waa farxad Ayatiin leh inaan maanta goobjoog ka nahay iskuulka Ayatiin oo runtii yeeshay dhul iyo muxuu ahaa fasallo u gaara waana hididiile iyo himilo hagaagtay oo gobolka Mudug ama Gaalkacyo u hagaagtay soo dhaweynayna cid walba ka qayb qaadatay haddii ahaan lahayd hay'adda UNICEF iyo wasaaradda waxbarashada iyo cid walba u qarantaba waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo iskuulkan ahmiyadda uu leeyahay qof walba ka dharagsan yahay uu dareemaya yani ubadka in maskaxdooda la kobciyo akhlaaqdooda tarbiyadooda la dhiso waa sanadaha ugu horeeya min markuu dhasho ilaa iyo 6 sano ugu horeyso mar hadduu 7 gaaro wuxuu u baahan yahay tacaamul kale iyo si kale in loola dhaqmo laakiin inta ugu horeysa waa inta ugu adag oo tarbiyada waxaan ognahay iskuulaadka noocan oo kale inuusan dalka ka jirin uu yahay kuwii ugu horeeyay marka qurba joogta oo kala wareysataan carruurta inta markay leeyihiin waa laga qaadayo xanaana la geeyayo waa qofka inta uu nugul yahay in lagu shubi karo yani aqoontii la rabo iyo diintii la rabo xataa waxa weeye that's why
caruurta inta ugu hooseysa loogu haya xaafadaha ama guryaha waa dareemi karaan waalidiintu tarbiyada ay u baahan yihiin iyo ubadku iskuulkaana wuxuu ka mid noqonayaa iskuulaadka ugu mudan oo biyaada iyo hawada iyo waxa weeye infrastructure inta la iska leh insha Allah taala tartiib buuna u kori doonaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xarun aqooneeda inaan ka soo qayb galno sidii loo sheegayna xanaanada caruurta waa marxalad u dhaxaysa gurigii iyo iskuulkii runtiina ilmuhu wuxuu tagayaa iskuulka isagoo akhlaaqna ka dhisan aqoonna ka dhisan sida hadda caruurtii mu'allifiinta ahayo ama siday wax u xafideen arkaynay marka muhiimaddu waxa weeye in la xoojiyo oo laga qayb galo oo nin walba uu ku hamiyo iyo gabar kasta ilmaheeda inay xanaanada keento si markuu ilmuhu u dhib badan yahay waliba weeye guriga markuu joogo oo da'da leegyahay marka waana laga haynayaa laba faa'iido leedahay waxna waa u baranayaa isagoo hadhow dhisan oo shidooyinku qaadayo hinkaadii siduu u qabo siduu wax u bartay buu iskuulkii tagayaa waxay noqonaysaa marka ilmahaas inuu dalaco oo isla markiiba iskuulkan shida fiican ka gaaro waliba tarbiyadda marka caasha iyo oo iskuulkan hindistay iyo hay'adihii taageeray wasaaradda waxbarashada iyo hay'adii fan ka bixisayba aad baan ugu mahadcelinaynaa annaga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xafladan quruxda badan oo sida fiican loo soo gaasimay iyo iskuulka ayatiin oo runtii aan isleeyahay 2016 baa la aasaasay saas maahan caash xaaladaha furay aad iyo aad dad badan baana hadda runtii ku liibaanay waqtigaas kolay dadku hadda caskay u soo guurayaan waxaan malaynayaa mar dhow dadka meel la kala geeyo in la waayo aad baan ugu faraxsanahay xafladan inaan ka soo qayb galno waa arin wax ku ool ah waa arin gobolku u baahnaa degmadu u baahnayd xaafaddu u baahnayd bulshada mustaqbalkeeda dhisaysa waa arin u baahan in cid waliba ka qayb qaadato marka waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada oo kusimaha wasiirkuyna kala joogo UNICEF oo dhismahan maalgelisay intii ka qayb qaadatay oo bulshada ka mid ah waa ugu wada mahadnaqaynaa inta ka bacdi maanta waa maalin runtii ay magaaladeena ku soo siyaaday iskuul kale oo micno leh shalay waxaan arkay iskuulka Xaaji Cali Biixo dugsi sare ah oo xariga laga jaray maantana iskuulkii xanaanada oo asagana shaqaynayay dhul helay horay u jiray sida ay sheegtay walaal Caaisho waxaan leeyahay marka magaalada waxaad moodaa inaynu horumar ku tilaabsanayno dhinaca kale caqabadaha ay jiraan marka koobaad farxad waxa anigu arkaa gaar ah iskuul ay hal abuurkiisa leedahay gabar reer Mudug oo walaasheena oo runtii anigu markaan hadda iskuulaadka fiiriyo doorka gabdhuhu inay hoggaanka iskuulaadka qabtaan macallimiinta iskuulaadka ay noqdaan waxaan booran lahaa oo caasho ku darsan lahaa macallimiinta iskuulkan kulligood gabdhaha laga dhigo maadaama caruurta xanaanadeeda ay iyagu khatar ku yihiin oo aabbayaasha ay in badan uga maaragtay xirfad badan yihiin gabdhaha filligaas bartay in macallimiinta iskuulkan ay noqdaan salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay inaan runtii xafladan qiimaha badan leh aan ka qayb galo sida akhyaartii igu horeysay ay ugu faraxsanaayeen runtii ayatiin aanu xogteeda si fiican baan u hayay caasho geestiir iyo shaqada ay haysana waa la socday iskuulkan waxa weeye iskuul caruurta lagu barbaariyo maskaxdooda lagu dhiso nooc gaar ah oo hadda magaalada Gaalkacyood ka jira dad badan waxa laga yaabaa inaysan ogeyn laakiin anu dadka ogaa ayaan ka mid ahay hadduu maanta marka dhisme helay wasaaradda waxbarashada dadaalkaas ay bixisay iyo hay'adaha kala qayb qaatay sida UNICEF oo u mahadcelinaynaa taageerada uu u baahan yahayna waa la garab istaagaynaa inta anaga nagaga aadan anaga waxaan ka mid nahay guddigii macnaha isxilqaan oo macnaha agoomaha iyo macnihii dadka tabarta yar baan u qareynaa marka waxaan ka codsanayaa dadka macnihii halkan jooga oo ganacsatada isugu jira
inay macnaha dadka agoonta ah oo iskuulkan macnaha dadka u baahan oo kale inay kala qayb qaataan fiigooda ilmo badan oo hadda waxa jira oo agoomo ah oo u baahan macnaha inay wax bartaan oo fiiga awoodin marka waxaan aad iyo aad idinkugu boorinaynaa inaa nagala qayb qaadataan iskuulka aayatiin macnaha ilmaha agoonta fiigooda iyo waxbarashadooda iyo kuwii aan baska iska bixin karinin ugu dambeyn duqa degmada Gaalkacyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada Puntland madaxa hay'adda UNICEF iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Dujaana ayaa soo xiray munaasabadda xarig jarka dugsiga aayatiin waxa way barbaarinta ubadka waxaan mahadcelinayaa cid kastoo gacan ka geysatay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo hal abuuraha iskuulkan gabadha adeerka waa Caasha runtii hal abuur fiican bay la timid adduunku muhiimad gooni ayay siiyaan aasaaska waxbarashada ubadka meelahan galbeedku aan muddo soo joogay waxay ka qiimo badan tahay in ubadka meelaha xanaanada la geeyo oo ay ku soo barbaaraan ama muhiimad gooni ah ayay leedahay aysan iskuuladu lahayn waxaan xasuustaa waxyaabaha cajiibka ah oo aan ku arkay meelaha xanaanada galbeedkaas waxa kamid ah maalin qof la diray lagama shaqaaleeyo markii la shaqaaleynayo dadka halkaas ka shaqeeya maalin hadduu qof la diray oo taariikhda ay u gashay buugga lagama shaqaaleeyo goobaha noocan oo ciyaalka lagu barbaariyo ama xanaanada aad baa loo dhowraa akhlaaqiyadkooda waa meesha bayska ah oo bini aadanku ay ka soo bilaabaan waxa looga soo bilaabaa waxa uu xaq u leeyahay iyo wuxuusan xaq u lahayn waxaan xaq uma lihid waxaan xaq waad u leedahay waxaan ma lihid waxaan adaa iska leh saaxiibtinimada sida ay kuwa kale oo halka sano jira ama labada sano jira ay u wada noolaan karaan ayaa loogu xujiyaa ilaa ay marka dambe la soo bilaabo numberska iyo kalarada in la soo kala baro marka qofkii maanta oo dhan qof weyn buu la sheekaysanayaa dhex fadhiya marna buug u akhriyaya marna nidaamka waddanka jira diinta u sheegaya qofkii waaba major 6 sano markuu jiro gabadha ciyaalkayga ugu yar waxay jirtaa 10 sano 5 sano markay jirtay 6 sano markaan iskoolka ama u kaxeeyo aan sii socdo ama tareemada meelahaas aan raacayno ayada ay hagaysa waxay leedahay halkan lama fariisto qofkan looma dhawaado halkaas oo fariisto meeshaana wadada laga gooyaa halka calanka bahasha oo guudan yahay leerkaas hamarin halkan maanta oo wixii loo sheegay waa la lugaysiyaa meelaha qaarkood tareemada la dhex raaciyaa suuq ayo waxaad arkaysaa isku xiriirsan oo yar 3 sano jira 2 sano jira waxa la barayaa nidaamka wadooyinka loo gooyo sida dadka loola hadlo maanta oo marka waxay yaqaanaan meel kasto aad maraysa nidaamka ka jira yaqaanaan waa nolol cajiib ah oo runtii u baahnaa waddankeena u baahnaa waxaan u baleynayaa aabayaal iyo hooyooyin fara badan oo halkan jooga inaysan fahansiisnayn laakiin waa la fahmi doonaa waayo xanaanada waa pilot project waa arrin cusub weeye ku cusub deegaankeena muhiimad aad u weyn bay leedahay waxaan rabaa Caashe iyo runtii xubnaha kale oo aayatiin inaan uga mahadceliyo muhiimadda iskuulkan u leeyahay aad bay cajiib u tahay aayatiin way hadashay halkaan ay ku hadashay hadafkeenu waxa weeye bay dhaheen bulsho leh aasaas aqooneed muraayada hadafkeenuna waa kobcinta maskaxda iyo meeqaamka ubadkeena halkaas ay ku hadashay aayatiin aad baad u mahadsantiin bahdiinu iskuulkan iskama imaan wuxuu ku yimid siyaasad wasaaradda waxbarashada iyo UNICEF ay wada qaadatay qorshaha wuxuu ahaa 5 sano ee soo socota in la helo iskuul xanaano ah ama xadaano sida loo yaqaano oo caalamka la jaanqaada sicid saaso maahin markii go'aamada la qaadanay waa wada fadhi nasiib waxaan u yeelanay haddaan nahay gobolka Mudug dadaalka Caasho iyo bahda aytiin ay bixisay inuu noqdo iskuulkii ugu horeeyay ee Puntland laga dhiso UNICEF hawsha aad bilowdeen siyaasadaha keenteen wasaaraddu idinla qaadatay dadka idinkaga mahadceliyeen wiili way idin sugaysaa aad baan ugu faraxsanahay inaad hortooda aad ummaddan uga ballan qaaday UNICEF waxay ballan qaaday inay fulin doonto waan rajaynayaa waana ku kalsoonahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa fikirka cidda iska laheedo gabadha Caasho Geesdiira oo nasiibka u yeelatay inay ardadayna siiso mustaqbalkii iyo wixii ay ku hamiyi lahaayeen
oo ah meesha ugu hoosaysiin wasaaraddu oo aan caqabado aysan kala kulmin oo UNICEF markay qorshahan ay keentay automatically hore laga qaatay fasal iskuul baa galaysa haddii marka ama secondary ha ahaado ama dugsi dhexe ha ahaado dad waaweyn ardadaas waxbaa la weydiinaya ama mawduuc baa soo dhex dhigaya waa dhif inay hesho arday intuu soo istaago si kalsooniya arrintaa uga hadla muxuu ahaa ama u cabiri kara fikirkiisa waayo waxa maqan kalsoonidii wax ugu muhiimsan oo dugsiga xanaanooyinka laga bartaana waa ardaygu inuu isku kalsoon yahay oo uu sheegi karo wax saxsan wax qaldanna uu sheegi karo inuu yaqaano xil mas'uul inuu yahay qofku wuxuu saaran yahay inuu yaqaano waxa uu leeyahay wax uusan lahayn inuu kala yaqaano meesha arinta alifka meesha ka toosana waa xanaanada marka dugsiyeena arkaysa waxa iskuulka marka soo gasho buuqa iyo bulhanka waxa moodaysaa meeshan in geel lagu qashay marka fasalka soo gashana qof hadli kara mal ardadii kalsooni ma jirto waliba gabdhihii marka su'aal la weydiiyo saas wada oranayaan afkii marra saaranayaan waxaas oo dhan waxa ay ka qaldameen waa xanaanada hoose meesha ardayga laga soo dhisaa alifka ka tooso waa 3-4 sano oo horeeya 4 sano haday u toosto ardayga oo uu xanaanada barbaarin fiican helo waa wax la hubo inuu ardaygaas arday fiican oo waxbarashadiisa dhamaystirta oo fahma macnaha oo muhiimadda waxbarashadu leedahay inuu noqonayo taa markii laga yimaado waxaan bogaadinayaa ayatiin kooxdan ayatiin oo ay hoggaanayso walaashan caasho sida la yiraahdo dugsiga kan waxaanu ka rabnaa ama loogu magac daray dugsi ah muunad ama model oo aynu ka rabno muunad u ah dugsiyada la midka ah ee waddanka oo dhan kaliya ayatiin gaalkacyo ma ahna waxaanu rabnaa kumanaal ayatiin oo la mid ah oo iskuula inaan sameeyno haddii aynaan ayatiin badan aynaan sameeyna dugsiyo dhexe ama primary fiican ma heli karno waxa kaloo aad iyo aad u bogaadinayaa runtii hay'adda UNICEF oo ah saaxiibka ugu weyn sida wasiirku sheegay ee wasaaraddu ay leedahay oo horumarinta waxbarashada nagala shaqaysa iskoolkan waa iskoolkii ugu horeeyay oo xadaana ah ama xanaana ah oo wasaaraddu fulisay ayadoo hay'adda ay ka heshay barnaamijkan kaalmada meeshii ugu horeysana waxay noqotay degmada Gaalkacyo fursadii ugu horeysana waxa la siiyay gudoomisada barnaamijkan taas horta waa farxad runtii aad iyo aad u weyn waa jiraan xadaanooyin private ah oo dad ay leeyihiin oo cadad ah saad la socotaana siyaasadii iyo manhajkii intaba qaarna way dhamaadeen qaarna hadda gacanta lagu hayaa marka waxbarashadana waxay yeelan doontaa base si aad ogtihiin hoose dhexe sare maanta manhaj ayuu dalku leeyahay manaahijta ilmaheena wax loogu dhigi jiray hal sano ka hor waxay ahaayeen dalalka hadda carabta iyo dariska iyo dalalka afrikaanka iyo dariska manaahij laga soo qaatay iyo internetka wax laga soo helay macalinku halka la imaan jiray markaas ilmaha markay taxaanka laga qaadayo meel u aaday hadda ma jiro حتى واحد شرط بوقته وفون 1 إلى فون 4 بيتحانك لو كينج هذا واحد سمينيا منهج هذا اللي سميه فون 4 waxa lagu keenayaa only form 4 baa lagu keenayaa form 1 kan form 1 baa lagu keenayaa marka waxaad moodaa inay waxbarashadii hadda wadadii cadeed cagta saartay ee mashruucan barnaamijkan cidii hirgelisay cidii ka shaqeysay aad iyo aad haday gudi noqoto oo noqoto professorka iyo teamkiisi ayatiin waa u mahad celinayna maxamuud maxamed warbaahinta daljur Gaalkacyo ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank